maareeyaha guud dekeda samafale aqoon-yahan run ahaantii wax badan u contribute gareeyay ummadiisa oo ay jaamacadda banaadir ugu horeyso maanta dood cilmiyeedkan waxaa looga hadli doonaa waxa loo yaqaano ganacsiga saadka iyo dhaqaalaha mustaqbalka Soomaaliya sida uu ekaan doono waa dood la falanqayn doono haddii uu la yiraahdo ambassador Maxamed Cali Ameeriko runtii waa samafale sanadkii 2009 markii uu ku dhacay qaraxii Saamow maamulka iyo ardayda jaamacadda Banaadir markii la geeyay dalka Nairobi wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiyay dalka Kenya intii uu istaagay arrimahaas aad uga shaqeeyay dhaawacyada iyo dadkii soo dhaweeyay geeyay istaagay ugu daaweyn lahaa waa samafale runtii jaamacadda qayb maxamed qarax maareeyaha dekeda magaalada Muqdisho waxaan rabaa inaan ku sii daahayn macallin casharka ay ka faa'iideysataan waxaan rabaa markii bogaadin magaalada u diro oo u gudbiyo dadka jaamacadda Banaadir gudoomiyaha jaamacadda Banaadir oo dhammaan runtii muddadii soo joogay yacni muujiyey isku xirka jaamacadda Banaadir iyo hay'adaha kala duwan ee dowliga ama maamulka maareynta yacni xisaabtama yacni caafimaadka ama waxbarashada farxad weyn ayay tahay inaan maanta idinla joogo oo aan ka hadlo mawduuca muhiimka ah u ah mustaqbalka Soomaaliyeed kaasoo ah xiriir ka dhexeeya ganacsiga saadka dekedaha iyo horumarka dhaqaalaha markasta wuxuu muhiim u yahay waddan kasta ayuu muhiim u yahay xagga saadka iyo dekedahana waa ogtihiin Soomaaliya waxay u yihiin wax muhiim ah waa meesha dhaqaalaha waddanka uu ka soo galo inta badan kororka dhaqaalaha waxaa lagu cabiraa GDP kaas oo ah gross domestic product oo ah waddanka guud ee qiimaha badeecooyinka waddanka adeegyada waddanka soo gala dekedaha tusaale ahaan maaha keliya meel ay maraakiibta yimaadaan kusoo xirtaan laakiin waa meel shaqo ay ka socoto waa meel mataqaanaa adeegyo fara badan ay ka socdaan waa meesha albaabka dalka ku xira dhaqaalaha adduunka waxay kaloo waa meesha maraakiibta ay dejiyaan kana raraan konteenarada shidaalka cuntooyin gaadiid qaab dhismo iyo badeecooyin fara badan kuwaasoo nolol maalmeedka dadweynaha waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego maanta qiyaastii 80 ilaa iyo 100% ganacsiga caalamka wuxuu soo maraa badda waxaa keena dekedaha keena maraakiib sida ay qiyaaseen qaramada midoobay qaybta u qaabilsan ganacsiga iyo horumarka ganacsiga badda ee caalamka wuxuu gaaraa ku dhawaad 12 bilyan sanadkii magacaygu waa Cali Saciid Maxamuud dhigtaa kulliyadda maamulka iyo dhaqaalaha siqaasa departmentiga accountingka ama accountantiga professor waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maanta dhan tikada inta noo sharaxaysay waxaad si fiican ugu sharaxaysay tikadeenu inay u soo dhoofiso ama wax keento localka ama Soomaalida gudaha ah waxaan ognahay wadamo daris nala ah oo marar badan badeena damaaciya haddana xaqna u leh inay helaan transportation iyo adduunka waxay ka soo dhoofayeen inay gaaraan xaq u leh laakiin badana inay isticmaalaan xaq uma lahan soo annagu maalin walba marka badana la dameecanayo uma lahayn inaan caqligana uu ka fakaro inaan samayno tikado gaarsiiya waxay u baahan yihiin saan uga faa'iidno dhaqaalaha anaguna kor uga kaco maasanta assalaamu calaykum wuxuuna weydiiyey badeena wadamo kala damco oo mataqaana inay isticmaalaan adigoo badeena ciddan ay karto ma laha badiga annaga iskale Soomaaliya iskale maraakiibteena iyo markay kusoo xirtaan ganacsateena alaabta la keeno waa loo geyn karaa hadda waa la geeyaa waxaa la geeyaa daisaan sheegay Ethiopia la geeyaa waxaa la geeyaa Kenya la geeyaa ilaa iyo waxaa la geeyaa South Sudan ganacsatada Soomaaliyeed way shaqaystaan
laakiin baddeena annaga ayaa iskale. magacayga waa ani Almaan Nuur oo dhigata kulliyadda ekonomiga. Su'aasheedu waxay tahay haddii aad dowladda la taliye u ahaan lahayd hal priority oo keliya maxaa siin lahayd trade logistiga Soomaaliya si dhaqaalaha loo kobciyo? Nihal waxay tiri maxaa tala siin lahayd dowladda waxaa tala siin lahaa ardayda ka soo baxay jaamacadda banaadir in shaqo isiyaan. aad u soo dhaweynaynaa professorka iyo dhammaan martida kale. waxaan rabaa inaan weydiiyo dekada Soomaaliya ma leedahay standard qaran oo markaasi quality control oo macnaha goodiska serviceska baxaya ama badeecooyinka baxay kuwa soo gala quality control oo standard ma leedahay? waxay tiri quality control dekada ma leedahay? xasha Allah dekada way leedahay. waxaan leenahay quality control oo baara mataqaana alaabta yimaada dekada iyo wax laga qaado. dabcan waa ogtihiin dekada alaab keliya ma timaadee waxaa xataa dhoofiyaa dalagga ka baxa waddanka, waxaa dhoofiyaa kalluun ama adhee malaaga la dhoofiyaa iyo waxyaaba badan oo waddanka ka baxo. kuwaas weliba waa anaga aad iyo aad ayaan u siinaa mataqaana lagu adeegaa, sababtoo ah waxaan rabnaa ganacsatada Soomaaliyeed inay helaan lacag mataqaana oo dibadda ay ka helaan. aad ayaan waxooda ugu fududeynaa. quality controlka aan leenahay waxyaabaha ay sameeyeen aragtay maqan sanadka hore iyo sanadka bilowgiisa xafiisyada u qaabilsan waxay qabteen konteynaro ay ku jireen waddanka loo soo dhoofiyey dadka la siin lahaa ay ku jireen bur dhacay. waxay kaloo qabteen sokor dhacday. waxay kaloo qabteen kaniiniyaal oo daawooyin lagu soo dhex qariyey kaniyaasha dhalinyarada ay maanduulayaasha ah bilibili iyo muqaadaraad ayay qabteen. weliba wax sira sameeyey oo ay ku soo qariyeen konteenarka dhexdiisa inta geeska lagu soo dhigay kaniyaas sax ah ayaa dhexda la soo geliyey. ilaahay ayaa mahadda iskale ka sokow xafiiskeenna ama shaqaalaha u qaabilsan quality controlka ayaa soo qabtay. marka waa xafiis aad muhiim nooga ah